aan ballan qaaday inaan sheego wuxuu ahaa xadiidka nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam khaslatan la yuhafizu calayhima 'abdun muslim illa dakhala al-janna laba arimood ma joogteeyo oo ma ilaaliyo oo ma xifdiyo adoon muslim ah illa jannadu gala waa laba arimood markaas nabigu wuxuu yiri huma yasir wa man ya'malu bihima qalil labada arimood waa fudud yihiin laakiin wax ku amal falaya iska yar saasa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam way fudud yihiin laakiin wax ku amal falaya midda koobaad nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam tukabbiru dubura kulli salatin 10 wa tahmadu 10 وتسبح 10 أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة كسته أو فرض مركه تكتد جدال كذا وحال لا هي 10 شير الله أكبر 10 شيرنا سبحان الله 10 شيرنا الحمد لله وميقة صدق فذلك 150 باللسان و1500 في الميزان النبي وحي عليه الصلاة والسلام markii la isku daro shanta salaadood waa 150 waxa akhris oo fiirso shanta salaadood midiiba 30 weey meeqay noqotay 150 baan nabi laakiin miisaanka aakhira waxa lagu saaray 1500 ayaa miisaanka aakhira lagu saaray maxaa yeelay halkii mar oo aad tiraahdi subhanallah 10 bay ka kacaysa فائدة إيه حسنات كذا طبعاً كبلابانية طبعاً بتجي حاجة آخر إسكمر كان النبي يقول يجري أو لقول واقعي شنطة صلوات أو من صدنا وبقول يكنت لكن حاجة ميزان كان النبي يقول يجري وكن يشم بقول حاجة فائدة أصلها هلا مانت إن ديبتي بقول يكنت $1 أو تراهب لو يقول شقة أو كوينا كن يشم بقول $1 بيكونش afar iyo 20 saac gudahoodna faa'iidadu ay tahay xagee laga heli karaa meel lagu sheego miyaad garanaysaa daafaha adduunyada meesha ugu dambaysa hadii faa'iidadaas lagu sheego rag baa u safri lahaa oo aadi lahaa soo moogid afar iyo 20 saac gudahood waxa la baxaysaa $150 waxaadna helaysaa 1500 laakiin midaan ayadoon qarash kaaga bixin ayaa intaas helaysa salaad kasta saas ay yeelaysa taasi waa mid labaad nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه marka uu seexanayana wuxuu oranayaa 34 jeer Allahu akbar ويسبح 33 ويحمد 33 صدح jeerna سبحان الله وأرنيا صدح jeerna الحمد لله لكن صدن معناها أفر ويا مد الله أكبر تعه وأمركم السيحانية صدح jeer الحمد لله صدح jeer سبحان الله أفر jeer الله أكبر ما اللي فهمه النبي يقول المركو الشاقي فذلك 100 باللسان وبقول حق آخرسك و1000 في الميزان ميزانك آخرنا وحا لغو ساري كن حق آخرسك وبقول الله أكبر وحي تهي أفر سبحان الله هنا و صدح الحمد لله هنا صدق سو بقول معها حق ميزانك آخرة وكن حيا للتيبة وحويان طوان بالوجود فناي لبدا arrimood oo mid tahay markuu qofku seexanayo inta inuu akhriyo midna tahay marka salaadaha uu ka baxa faradka inuu toban ka akhriyo la yuhafizu alayhima 'abdun muslimun illa dakhala al-janna bani adoon mu'minihi muslimi ma xifdiyo ma joogteeyo illa jannadu gala nabiga su'aal baa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam waxa la rasuulka ilaahay waxa tiri huma yasir wa man ya'malu bihima qalil labada arrimood waa fududii dadku amal falayana waa yariin say ku dhacda arintaas haday fududii waan u jeednaaye see dadku amal falahay loo waay oo dadku u banaan waay markaas nabiga yiri yaati ahadakum yaani shaytaan baa wuxuu u iimaanayaa midkiin
فينومه قبل أن يقولها مركزو سيحين يا انتونا دهين أيوه رديسين هيا ويأتيه في صلاته صلاة وقوع معنا يا نحديده مصنع فيذكر حاجته قبل أن يقوله انتونا أرانين كهر أيوه حسوسنا يا حاجدي سيادة كتاغن بو حسوسنا يا مركزو كان قاتشنا يا labada arrimood ba shaydaan ba soo xaadiraya agtood midda hurdada waa la aragtay hadaa istiraadinta soo weysa qaadatay adkaarta akhri marka bilowdid baba gamaanya kugu bilaabanaysa meel alla meel marsiinaysa adoo garan ba qamleeda saasu khayrka kugu dhaafinay salaadana marka ka baxdid oo istiraadid bad adkaarta akhri ayuu markiiba wuxuu kugu joojinayaa intaas oo arrimood bahalkan baa aad uga qayb qaatay mobilka markaas oo soo bilaabanaya soo dhacayaaba oo la yaabaysa intaas oo koola waxa arkaysa salaamu calaykum qofku markuu yahay asagii intaas ku taagan subhanallah intuu dhawaa baxayaaba si baxayaaba خلاص markuu salaada la joogana wuxuu ku xasuusinayaa danaha aad leedahay oo aad markaa kugu taagnay buu ku xasuusinayaa danahaas marka waxay keenayaan ayagina ku fakartid meeshii aad ku fakari lahayd shaygan qaaliga ah oo nabigu sheegay ka faa'iideyso hadda dadka u fiirso markii salaada laga baxo subhanallah haday bilaabaan qof inta uu akhriyay xasuusani waa naadir waa bilaabaya faraha qof kasta faruu dhaqaajinaya fiiri qof wax ogna ma jiro waa naadir subhanallah qofku bilaabaya allahu akbar bilaabaya hadii la yiraahdo xagee marsiinaysa meel alla meel marsiin ma yaqaan waxa marka caado iska noqotay markii salaada laga baxaba subhanallah ya alxamdulillah horta faraha in lagu bilaabo farihi waa iska wada shaqeynayaan kulligood waa dadka wada dhaqaajinayaan hadaa fiirisi qaarkood waxbay akhrinayaan qaar waxa uu akhrimayaan farihi ma shaqeynayaan iska socdo oo shaqeynayaan hadii marka nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam adkaarta la akhrinayo mar waxa la jideeyay 33 bay ku timaada marna 4 marna waa midaan oo waxay ku timaadaa 10 marna waxay ku timaadaa iyadoo 100 ah baa waxa laga dhigayaa 100ka 4 Allahu akbar baa laga dhigaya salaada gudaheeda way laftigeeda duruqdan marka kala duwan oo adkaarta nabigu u jideeyay midaana ugu yar 33 hadaa joogtay kartid akhri subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 boqolka maxaa uga dhigaysaa la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lahu waa dhamaystireys oo boqolka uga dhigaysaa taasi waa adkaarta siiqa kamida weey midaan 10 ka ahna waa siiqa kamida waxa laga yaabaa mararka qaar kood inaad degdegsan tahay oo midda dheer adoo aan akhrin ka tagtid tan yeena ku dhaafin marka midaan 10 ka yeena ku dhaafin waxa naftaada bartaa marka midaan marka akhrinaysa nafteena soo xaadirisid ina 10 ka akhrisid ugu yaraan waliba dumarka waxa laga yaabaa adkaartana bayna ka dhacsan yihiin salaada haday guriga ku tukadaan faradka inta badan waa naadir inay masjid ku tukadaan jamaaca inay helaan waa naadir laakiin salaada gurigooda uga khayr badan salaaday ku tukanayaan masjid maca tan gurigooda ka khayr badan ayagii marka adkaartaan oo kale jikadii baa sugaysa ilma yar ba ku soo ordahaya hawl baa u taala haday 10 ka joogteeyaan habeenkii markay seexanayaan 34 Allahu akbar 33 alhamdulillah subhanallah boqolka ay joogteeyaan inta haduu qofku isku dayo wuxuu helayaa khayrkan nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa kanzi qaali'a oo kayd qaaliya weeye oo aan u baahanahay inaan nafteena barno oo aan ku tarbiyano ilaahayna waafajiyo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in